kartaa laba iyo hal aad khiyaano qaran u taqaanay suurtagal tahay inaad xilka isaga casisho su-aasha labaadoon raba inaan ku weydiiyo oo dadaal nabadgelyo ah suurtagal ma idinka tahay inaad isla garataan xildhibaanadiinnu Uganda iyo Burundi inaysan dalkan u dhalanay dibadda ka yimaadeen oo aad soo jeedisaan mooshin ah inay dalka isaga baxaan kadibna la wada hadlo oo ummadii Soomaaliyeed oo dhulkooda ay xor u tahay aad la fariisataan oo la wada hadashaan halkaasna loogu gudbo dawlad wada jiraho Soomaaliyeed oo dawlad shariica islaam ah taa idinka soo tagashaa iyadoo ay Uganda iyo Burundi meesha joogin waayo ummadda Soomaaliyeed ayadoon cadow shisheeye dawlad shisheeye aysan joogin ayay wada hadli jireen wabillahi tawfiiq maalinuu ma bilaaban dadkeeda shalay maanta malaynaa sanadku 19 bay ku jirtaa wax badanna waynu soo mareen oo goobjoog baan u ahayn qabiil Soomaaliyeed oo qabiil kale hubka qaadi kara ama hubka dhigi kara inuu jirinna waa la wada ogyahay Soomaaliduna haddaan iyada gacanteeda la isugu dhiyo ay fiicnaa lahayd intaasna gacmo shisheeyaa ku jira ama halkan ha ahaato ama xagga kale ha ahaato Uganda iyo Burundi waa ciidan xero ku jira sharcina ku yimid sharcina ku kara oo amar ah laakiin problemka jira Uganda iyo Burundi meesha ku haaya mar hore ay tagi lahaayeen oo hubal in saacado hore isaga tagi lahaayeen waxa meesha ku haaya problemka ah oo jira xaqiiqdii runahaan waa wada ogtihiin waana ka daragsantihiin iyadoo intaas marka xal loo helin waan bixitaanka hore xal ma loo helayo waayo waxay meesha soo taagan waad ogtihiin dagaalyahano adduunka la isugu inay ka falsamayaan magaaladii Muqdisho marka lama ay dadkaas ka falsamayaanna Uganda iyo Burundi dawladii baa garab ay garab taagan yihiin marka taas suuragal ma ahan ayaana qaranna wax walba oo ummadda Soomaaliyeed xaqeeda ama xoolaheeda ama dalkeeda ama calankeeda midkii ku xadgudbo ayaa khiyaar qaran ah ma ahan oo kaliya inaan nidaamno maxaan ku leedahay hebel baa khiyaano qaran galay ma ahan waa wax cad waa wax cad in qofka lagu qabto waaye oo heshiisyada bartiga ah sidoo kale qodobkan hadda heshiiskan memorandum kan ah garabka ah oo aanan dawladdu si buuxda aysan warbixin ugu haynin oo golihii wasiiradu aysan nin ka difaacaysan jirin la horkeenay baarlamaanka uu ka dooday baarlamaanka xukuumadii heshiiskan soo gashay wax hor istaagu yiraahday heshiiska waa sidaan la waayey ayaa waxay ka mid tahay khiyaano qaran waayo baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay wixii la khaldanay inuu saxa wixii saxna uu taageero arrintaasina waxay ahayd khiyaano qaran meel baan la iska dhigisaan cirka lagu laalay walaal marka arrimaha Uganda iyo Burundina ay ka joogaan oo ay difaac ka yihiin dadkan isbedeliga ah ee aad ogtihiin oo ka soo dagaalkii afka beynaysa Muqdisho ka howlgalaya dowladnimadii guud ee dadka barakeynaya ee xaafadii maalin oo galaaba ay qaxaytay dadkaas ugu joogaan magarad su'aasha u dambeysay waxaan ku soo afjaraynaa Cabdallah aad iyo aad walaashi waa maasantahay war xildhibaan waa ku salaam walaalkay horta anigu waxaan taageersanahay dawladda walaalkay laakiin walaalkay si aan la socdo xildhibaan waxaan u maleynayaa inaad ila joogto ama London ama maaragtay meelahan kale Scandinavian-ka meeshan dawladda jirta waxaan u maleynayaa dawlad ayaa la iska leeyahay laakiin waxa jira nin walba waa ogyahay hebel iska celi haddaan loo wada hadlayn badanaa waxa ay wada joogaan waa la soo kala carray wadankii dagaal baa ka socda walaalkay shacbigii marka cidu u nixmayso walaa al-shabaab walaa dawladda geedii hoostooda ayay jiifaan dagaalkaaduna waa daba dheeraanaya dad wax iska celinaana uma ekidin waxaan rabaa walaalkay gobollo badan oo waxa jira nabada dagaalkan iyo dhibaatada ma naga dul qaadiin maadaama Sheekh Shariif uu yahay Soomaaliya oo madaxweynoodii uu yahay ma naga qaadiin oo Boosaaso iyo meelaha geedin walaalkay oo caasimadan dagaalku ka socdo ka qaadiin dagaalka oo Uganda iyo wixii maartay madaxweynihiin iyo xildhibaanadiinu xagga u guurtiin walaalkay وانا ما سنتها حلو
xildhibaane su-aashiisa wuxuu ku bilaabay inaa Yurub joogto marka xagee ku sugan tahay adiga u sheeg aniga kolley waxay u maleynayaa inay macnihii aan u qarinay xagee ku sugan tahay hadda aniga magaalada Muqdisho jooga waxaad ii wareysanaysaa inaan goobto ka ahaa maanta ها لكن إسقى قدال كيميت أو حقوقاتي مركا تنيرو جو عطا لقوا رئيسان ما من يروح جو لقوا رئيسان ما يساتن كباما وصح هاي أركان يعني كوكان عنا إلى فينا لي وارون هاي نوود مركا جوابتي مركا دولة دان مركي لسودة هاي ذات كاني ومصر بسنجال كعي وبلدان ومصر بسنجال لان وما صار في جيبوتي وما صار في نيروبي يمكن اللي بعنا وحلصنا في ماشي هو الحين تسووني إني سيارة واحدة كفتان مركز دي الله راي مح هذيك اللي بعنا تين وكل يوم بعد اللي بعنا نقولنا من زمان نقولنا نجد سوماليا ما هي مشان ما هي وفرق سوماليا إني تكتدير ما هي إذا أنا كورجلنا إذا أنا كنت منينا إذا أنا كسرنا دولة أوكي سؤال كلو قابن مركل إسلا عبد الله اسكسو لابو ها ولا شيء أديت ما يحل باني هذا الكي كلا بياني دولة داني ميسان هين دولة صوماليات أو ما شربت تيكرتا وام هاي مبود وانا أنكم نوغم نمسو دولان حقا نمسو دولان دولة دا عاصمة دا باسمية دولة دا أتهين ميادو قبل كاربتين آدي كارين ما داعي هذا الكي كلا سار بطلان ميان لقد تاجرين دولتان مثل مدحوين الجونية اللي دينو هذا الكو اسمه سارة مثل الشيخ شريف هو مدحوين كلية قبل بنادرة وانا ما سنت ولا الكي معاً كلنا الصومال لأن بلدان نبضة كثير تمام ولا كثير أوكي لكن دad badan waxay aaminsan Puntland inay gooni ka tahay sida Soomaaliya oo kale ee Somaliland oo kale Somaliland oo kale ha marka Puntland iyadu baarlamaanka ma ka tirsan tahay oo sharciyada la dejinayo iyo ciidamada imaanay ma ku jiraan xildhibaane ya Puntland ayuu ka wadaa ma ka tirsan tahay maamulka dawladda federaalka ah mise gooni bay ka tahay ugu tirsanayso xildhibaanan lixdan iyo kow xildhibaan soo kuma la baarlamaanka soo ra'iisul wasaaraha ma ahan soo wasiirada kuma laha inaan ugu tirsanayn marka aad u maasan tahay xildhibaane waqtigaana siisay kolley xilli dambeena ku tahay